daqiiqado un ka hor waxaa hoobiyaal ay ku dhaceen aqalka madaxtooyada iyo goobtii ay ka socotay munaasabadda caleemasaarka oo ay ku sugnaayeen madax kala duwan oo uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha dhammaaday xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo weliba madax kale oo ka kala socotay dowlad goboleedyada qaar ka mid ah dalka ka jira sida hiirshabeelle iyo weliba waqooyi bari soomaaliya iyo gobolka banaadir iyo mas'uuliyiin kale ciidamada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ee garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa loo filayaa inay soo tuureen hoob. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulantii wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin baa meel baa ku sugantiin si walba dinoola socotaan kuna soo dhawaada barnaamijka xulashada wararka oo aad ku daawan doontaan qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin ciidamada daacadda u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo duqeymo ay u adeegsadeen hoobiyaha ay ku garaacay goobtii ay munaasabadda caleemasaarka Aadan Madoobe ay ka socotay iyo Xamse iyo Xasan oo halkaasi ku sigtay waxaa idinkaga haynaa faahfaahinaha turunta ayaa inoo eegi doona sidoo kale waxaa inagu maqaalo ah sida madaxda halkaas ka hadashay ay ka sheegtay in madaxweynenimo dambe aan la isugu yeeri karin haddii kale dabcan meesha waxay ka sheegeen hadaladooda ayaan dhegeysan doonaa Aadan Madoobe oo sidoo kale xafladii caleemasaarka ka sheegay in uu isugu yeeri doono shirka heshiisiin koonfur galbeed waxaa dhanka falanqeynta inoo fadhiya oo il gaar ku haya arrimahaasi oo dhanba Axmed Toronto. Axmed soo dhawow. waa mahadsantahay Cabdisalaam Maxamuud Shire adiga iyo daawadayaasha Wama TV intaba waa salaamaya daqiiqado un ka hor waxaa hoobiyaal ay ku dhaceen aqalka madaxtooyada iyo goobtii ay ka socotay munaasabadda caleemasaarka oo ay ku sugnaayeen madax kala duwan oo uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dhammaaday xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo weliba madax kale oo ka kala socotay dowlad goboleedyada qaar ka mid ah dalka ka jira sida hiirshabeelle iyo weliba waqooyi bari Soomaaliya iyo gobolka banaadir iyo mas'uuliyiin kale ciidamada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ee garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa loo filayaa inay soo tuureen hoobiyaashaasi oo sidoo kale ku dhacay garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo wax yar un ka hor ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaas uu khudbad ka jeediyay isagoo oo markaasi ku faantamayay in doorashadii Aadan Madoobe aysan wax dhiig ah aysan ku daadanin iyadoo maalin walba magaalada Baydhabo habeen kasta magaalada Baydhabo uu dagaal uu ka dhaco taasi oo runtii la dhihi karo waxa ay ku tahay fadeexad iyo wajigabax weyn madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhammaaday oo runtii aan dhihi karno laf cad ayuu toobin ku hayaa sidoo kale daqiiqada ka hor ayay ahayd markuu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu halkaasi kaga hadlayay arrinta koonfur galbeed khaasatan isagoo oo markaasi dhaliilayay Laftagareen iyo ciidankiisa waxa uu sheegay in iyadoo la joogo 2026 ay nasiib darro tahay in maaragtay jabhadeyn iyo la bilaabo taas oo ula jeeday ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamada iyagu xoog kaga saareen magaalada ayay haddana waxay ku dhaliilayaan maaragtay maxaa u jabhadeynaysan oo aad u dagaalamaysaan oo xabad noogu soo ridaysaan hadda iyaga xoog kaga saaray ogow magaalada Baydhabo ciidankii ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda iyo wanaageeda ka shaqeynayay intay xoog kaga saareen bay haddana waxay ku dhaliilayaan madaxda Soomaalida balfiiri hadda waxay ku dhaliilayaan maxaad u jabhadeynaysan maxaad duurka u joogtaan maxaad maaragtay xabad u soo ridaysaan iyadoo oo maanta iyadoo sidoo kale maanta lagu duqeeyay F16 Turkigu leeyahay marka magaalada Baydhabo hadda waxaa ka taagan kala carar iyo runtii xaalad adag ayaa ka taagan madaxdii meel ay ka duusha ayaa la laayahay garoonkii diyaaradaha ayaa lagu wada yaacay qaar ka mid ah goobihii ay deganaayeen ayay ku noqdeen laakiin hoobiyaal ayaa ku hoobanaya qaybaha kala duwan ee magaalada Baydhabo madaxda dowladda xilkeeda u dhamaaday madaxweynaadkooda u dhamaaday soo ceeb kuma aha in magaalo degan oo amni ah intay qabsadeen sida doonaan wax ku qabsadaan haddana amnigeeda isugu laayihiin haween walba lagu dagaalamaya diyaaradii ugu xirsiraa caalamkana ay dushka ilaalinaya saacadii la soo dhaafay waxaan sheegnay in ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ku soo wajahnaa magaalada Baydhabo oo isku dayay inuu ka hortago munaasabadda caleemasaarka hase ahaatee diyaaradaha ay wataan ciidamada dowladda federaalka ee Turkiga ku caawiyay
ayaa ka hortagay oo sameeyey in maaragtay dhibaato inay ciidankaasi ay gaarsiiyaan sidoo kale ay duqeeyaan hase ahaatee iyagu dadaal kastoo ay sameeyeen waxa weeyaan inkastoo aan dhihi karno xilli hore maaragtay ma aysan noqon laakiin hadda waxaa la sheegayaa in gudaha magaalada ay duqeyn ka socoto meelo kala duwan maaragtay hoobiyaal lagu tuurayo madaxtooyadii lagu kala cararay goobtii munaasabadda ay ka socotay lagu kala cararay garoonkii hadda laga dhooflaayahay oo madaxdii hadda ay bixi laadahay xaalad adag inay ka taagan tahay magaaladii iyo mashaqo badan ay ka taagan tahay daqiiqado ka hor ayay ahayd markii mas-uuliyiin kala duwan ee halkaasi ay ka hadlayeen iyagoo runtii si jees ah oo runtii aan wanaagsanayn uga hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha koonfur galbeed oo la rabay inay si wanaagsan ay uga hadlaan la rabay inay xal u keenaan inay shalayto koonfur galbeed mid bay ahayd nidaam ay lahayd dowlad ay lahayd system bay lahayd dad isku duwan bay ahaayeen iyaga la rabay inay mataqaanaa iyaga kala dhantaalay oo laba doorasho oo midna lafta gareen u yahay midna aadan madoobe u yahay meeshii ka wada qabtay sidaas darteed ragga isdiidan halka isteed ah iyaga la rabay inay isu keenaan iyaga si maaragtay jees ah oo runtii aan dhihi karo mas'uuliyad darro ah meesha iyagoo uga hadlay ba haddana hoobiye ku soo dhacay runtii waana waxaan dhihi karno waa waxa ay iyagu madaxsadeen yaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay madaxdii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha oo fariin adag u diray dowlad goboleedyadii joogay shirka oo ugu horeeyo cali guudlaawe iyo waliba firdhiye oo sheegay in uusan wax dambe oo madaxweyne dambe inaan loogu yeeraynin galabtana ay halkaas ay kaga tagayaan magaca madaxweyne wixii hadda ka dambeeyana ay yihiin hogaamiyeyaal waa sida uu hadalka u dhigay oo aysan maaragtay la ogolayn in madaxweyne dambe qofna uu isugu yeero waxaan ka ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya runtii waa masaxay markii aan eegno aad madoobe wuxuu munaasabadii calaamadiisa ku sheegay in dib u heshiisiin uu sameyn doono oo reer koonfur galbeed uu sameyn doono taa sidee ku suurageli kartaa arrintaasi runtii waxay u baahan tahay dadaal badan koonfur galbeed waxaa lagu kala qaatay nidaamka hadda jooga aadan qori buu ku qaatay nin hadduu qori nabad kumuu qaadan qorigu xoog buu ku qaatay cabdicasiis xasan maxamed lafdagaren xoog baa meesha laga saaray isagana wuxuu hadda rabaa inuu xoog uga saaro aadan madoobe runtii ragga maanta u yimid aadan madoobe ee la jooga ee martida ana way tegi doonaan soomaaliduna waxay mahmahdaa xabaal iyo ninkeed loo kala teg horta maanta aadan madoobe iyo waxaa loo kala tegayaa reer koonfur galbeed diyaaradahana ma kortaagnaan doonaan laakiin isaga iyo ragnimadiisa waxaa la ogaan doonaa maalinka loo kala tago sida uu u xaliyo koonfur galbeed oo maanta isdiidan oo qoorta iskula wada jirta oo dagaalamaysa oo xabad isu wada sirta siduu u xaliyo isaga iyo ragnimadiisa u taala waqtiga ayaana sheegi doona oo noo cadeyn doona inuu yahay hogaamiye waxtar leh oo hal abuur siyaasadeed leh iyo inuu yahay goof maran oo dadka reer koonfur galbeed lagu lugooyay marka ciidanka dacad u ah lafta galeen in ay maanta ku garaacaan goobtii uu madaxweynaha madaxweynaadkiisa u dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ay ku wada sugan yihiin iyo madax kale oo badanba maxay kaga dhigan tahay والله وانا سيب درو مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية او صوماليا جوجو او ان ماركتي ودنكيسي جوجو iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wadankoodii jooga magaalo kamida jooga in maanta cabsi darteed F16 lagu waardiyeeyo oo la yiraahdo amnigooda F16 ayaa lagu sugayaa waa wax ay iyagu keeneen waxa la lahaa qoriga jabiso qarjaftiisa lagama naxo Soomaaliya marka waxa iyagu sameeyeen waxa ay maanta hoobiyaha ku dhacaya mid shabaab soo ridayna ma aha mid meel kale ka yimidna ma aha waa mid mataqaanaaye iyagu ay keeneen waa waxa ay sameeyeen wixii ka dhashay le marka taas iyaga ayaa sameeyay maantana iyaga haysataa oo iyagii baa maaragtay magaaladii iyagoo madaxdii Soomaaliyeed ah oo wadankan madax u ah oo mas'uuliyiin u ah maanta ku nabadgelila waana waxa iyagu sameeyeen
walaalnimada iyo midnimada iyo dadka in la isu doono iyo in wax la isku wadana iyo in xoog la isku muquuniyana tan ayay leedahay Cabdisalaanow. dabcan wiilashii Soomaaliyeed ee la soo tababaray ciidamadii dalka ee waddanka loo soo tababaray ee dhalinyarada ahaa in diyaarado F-16 loo dhiibo oo la dhaho waddankiina duqeeya soo nasiib darroma. Cabdisalaanow waxaa weeyaan Soomaali waddankoodii maxaa kala qoqobay waxa kala qoqobay waa isu xoog sheegashada waxa kala qoqobay waa isku maaragtay isu turid la'aanta annaga waxa dawladnimadeena burburiyay waa inaga oo dawladnimadeena sida xun u isticmaalayna sida wanaagsan aan u isticmaalaynin Soomaalidu waxa la dhahaa yaqaan dhibe nin waliba ninka walaalkiisa u xiniyo wan yahay xasan sheekh maxamed maanta lafta gareen iyo reer koonfur galbeed u xiniyo wan yahay shabaab maanta waxba kama qaadi karo cid waxba kama qaban karo meel kale ma xoreyn karo tuulo kale ma tagi karo meel kale ma aadi karo cadow kale ma iska dhicin karo laakiin maanta dawlad goboleedyada iyo nidaamkii yaraaya la dhisay dhowr iyo 12 sano ee hadda wixii 2000 ka dambeeyay la yagleelay dadkii maaragtay hogaaminaya maanta ee Soomaaliyeed ee walaaladiisa ayuu u xiniyo wayahay waxa uu maanta ku handadayana wuxuu isagu leeyahay maahe waa wixii ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamadii Soomaaliyeed oo siyaasadeynayo oo uu sida isagu dantiisa u arko uu doonayo inuu maaragtay u isticmaalo runtii taasi de meesha hore inoo geysay nin waliba uu og yahay hadda wixii ka dhalan karana nin waliba uu og yahay marka mid lagu noqonayo maaha waa mid Soomaali taqaano maaragtay waa wado yani waa jid hore loo soo maray runtii in maanta lagu laabtana waxay noo tahay ayaan darro iyo runtii maaragtay dad aan wixii ay shalay soo mareen aan garanaynin wata xaaladda mas'uuliyiinta ku sugnayd goobta hoobiyaasha lagu garaacay hadda waa sidee hadda xaaladda magaalada runtii waa isku dhacaysan tahay magaalada waxaa ku jira kala carar cabsiya ka jirta nin waliba meeshii uu deganaa ayuu ku laabtay wufuuddu waxa oo jadwal baa u kala degsanaa oo diyaaraduhu say u kala keeneen in loo kala horbaxo oo qoloba maalin baxdo ay maaragtay qorshuhu ahaa qaar galabta ay baxaan qaar ay caawa magaalada u bariyaan qaar kale maaragtay birito ay baxaan marka hadda magaalada waxaa ka jirta cabsi xoogan ayaa ka jirta runtii waxaan la sheegayaa in madaxtooyadii iyo aagay dhammaan xafladdu ay ka socotay oo dhan lagu kala tagay in ciidamo badan banaanka loo saaray in diyaaradihii dib loo kiciyay xaaladdu runtii meel xun bay maraysaa oo lama qiyaasi karo هذا وما تنتهي دعوة ديال وحنا أنت تكسر جوين إنها برنامج كنا فلاشة ورشة وتكون دعوة قلبات إسبابا أو وكم دي هاي دقيقة لوجستيك قبتها هي كسرت المناسبة على مسارك هذا المدوي أنت برنامج اللي قاعد تقارن السياسيين قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.